بس بس عندي حساب كودين أنا عندي حساب كم ودين ساعد على كارتك ناي فرينا وحلو عام بحمان وحلو قليلنا معهن وحقرن معي تلقتهم قفك في كيسك صباح ذا تصل صاحبي uurkeeda been waaye way ku macaan tahay ayada Soomaali TikTok soo dhigi jirtay inaga ma sirsin jirtay ay dhihi jirtay aan nolosha noocaas haystaa uurkeeda waa been marya ay caloosha ka san jirtay ma way ku macaan tahay wixii noo sheegaysa dhan waa been kommentiyada heerkaas ayay marayaan waliba kommentiga maxay fiicnaan lahayd haddii kii maa lahayd rag maya kommentiga oo u badan oo cayda wuxuu ahaa gabdha dumar ayay u badnaa wala yaab dumarka soo ma ahan inay is gacan qabtaan dumarka samay qurux badnaan lahayn markay dhexdooda is ixtiraamayaan inuu qof haddii la soo fure iyo haddii uu cunug ka dhintay inaa u noqoto tiishka oo ilinta la iskaga titiro niya inaad ku qosasho weliba meel public ah dadka ku faraxsan waxaa ku ogtay inay kugu dhici doonto adi like commentyaashaas markay akhrinayo mataq ayaa i qabtay waxaa dhehaysaa wax page ka dasi gasho marag isku isqarinayo oo dumar profile ay soo gasarteen oo ciwaanad dumar isticmaalayaan niyo mise waa real dumar ayaa gabadha wax u soo qorayo dhibaatada ay maraysay markii cunugeeda waynaysay dhibaatada ay maraysay markii furitaankan dhacay mala joogtay mise maalin miyay biyo ku diiday online lay ka aragtay weligaa online lay ka aragtay markii maalin hore la weydiiyey ma kala tagteen ee xaqiijisay ee dhahday haa anigu waan kala tagnay waxaa la fuu dhamaadaa ee cunugana waysay oo ilmihii ka dhintay waxaa commenti lagu soo badiyey uurka fake u ahaa mise way istusaysay qof muu farx yani you can't be happy for someone qof social media ku jira waayo wuxuu u dhiganaya waxaan xasuus u hadhow dambe u arko oo ilmaha arkaan qofka dumarka markii isku dhacdo laba xanuun koo cunuga la waayo furitaanka nin kala tagaa waxaa macno weyn ma aha you can go laakiin wax kugu beernaa oo intaasoo bilood aa ka fikiraysay say u yaalaan dharkay xiran doonaan cuntaday cuni doonaan farxaday kula qaadan doonaan kaa tegay boos weyn ayaa kaa baxaya xanuun weyn ayaa dareemaysaa waxaa la rabaa dadka asxaabta qofka ku dhow inuu ka agtagin oo adina la isku mashquuliyo qofkaasna isku daydin inaad farxad gelisiin qofkaa isku daydin inaad bannaan ku bixisiin oo hataa guriga ku jirin sababta qofkan is going through a grief laakiin commentayaashan oo dumarka dhahayaan uurkii been u ahaa markii hore istusiisay ilaa ku dhacday bababa wardadaa 10 cunug dhalaan oo ilna ku dhicin waxan waa qadar alle mid kale qofka inuu dhibaato maray mise yar caadi waaye hata si walba isku adkaysa ma sha Allah horta gabar adag waaye ma kama oo muxuu ahaa qof maanta rafaadsan oo dhulka ku dhacsan oo dheeysa gacanta taagaysa ma aho alxamdulillah way shaqaysanaysaa nolosheedana hore wada weyn ma sha Allah samarka ka muuqdana samar weyn ما شاء الله لكن سو لغما فيعنين oo lagama qurxsaneen in gabdha oo hoos u jiidayaan oo dhahayaan oo hoos u dhigayaan hatta ninkii ay kala tageen gabadhu waxa la rabaa
inaa hadallo macaan ugu soo qortiin commentiga keep going kan youtube kali ku qortiin hataa tiktok gali imaatiin qofka dhiirigelisiin sababta ayada waxay isku adkeynaysaa laga yaabaa dad badan oo ayada lamid ah oo daawanayaan inay ku xiran yihiin oo ilmo ka dhinteen oo furitaan dhacay yani nolosha mar walba sooma aho macaan ayada is adkeeya leedahay ay dumarka hatusin muxuu ahaa inay isjilciyaan ay dhibaato walba marayaan ay caloosha xirtaan laakiin dumarkii hadday noqoto inayba ay gabadha xijaabka jiidaan ay dhulku dhigtaan wallahi commentiyada markay live ku jirtay gabdhaha qoraayeen waxaas waxay u malaynayaan laakiin wax caqli qal inay commenti ku dhaafayaan ninka iskoolka wax ka baratiin school feeski lasoo waalidiinta bixinayaan waa inay u qasaareen ayada maanta maasha allah wakaas way adag tahay qof uma baahna kii maanta dhibaato mari doono waa ninkaas sababta imaan badanaa waxaa arkaysaa markii gabdhaha ay ku dhacaan miscarriage cunuga waayaan intii la rabay ninkan inuu adkaado oo gabadhan intan ay marayso xanuunkan iyo dhibaatadan iyo murugadan ay marayso intuu la taagnaan lahaa fakatax kabaa xiranaya ana waa aqaani kuwa niman ma dhihi adi waxaa dheh ma aqaani laakiin lagama qorxsaneen gabadha intay maraysa xanuunka ma aqaan uu arki doono videogan laakiin soo lagama qorxsan adiga iyo nimanka noocaas soo lagama qorxsaneen gabadha inaa furitaanka ku dejinin ood ku ordisiinin dhib malo qof oo kala tegi kartiin dhib malo calaf u dhamaan karaa laakiin soo lagama qorxsaneen gabadhii oo murugoonayso oo maraysa xanuunkii oo hooyo wax waysay hooyo hal mar intaasoo cunug ku koraaya cunug weyn u ha cunuga tagay soo lagama ficneen inaa u noqoto gabadha meelay ku sixan karto meelay ku nasan karto meelay awhinteeda ku titiran karto ma aho inaa warqadan xumaa soo qaracdeen dhib malo furitaanku dhici kara bal markay adkaato ay istaagto maxay oo la sugaysay shalay iyo daraad kuma baahna maanta laakiin bini aadan ahaan qof murugo kale ugu dar ragga qaar wallaahi caqliga dhan kaba uga jira qofa murugoonayo qofa dhibaatada maraayo sidee hamar albaabka uga bixi kartaa last intaan videogan xiran waxaan dhihi lahaa ugu dambeyn gabdhaha waxaas maraayaan oo waqtigan maraayaan oo xanuunka maraayaan oo murugeysan oo xanuunsan oo laga yaabaa inay furitaan ku dhacaan mise ee cunug waayeen xanuun walbo waqtiga ayaa baabi'iya hadhow dambe ka dadaasho oo horumar sameyso oo adigoo dhan ismashquuliso oo xanuunkii u baaba'o gadaal ayaa fiirinaysaa waana ku farxin you'll be happy waanad ku farxaysaa sababta xanuun walbo wuu kusii adkeynayaa